Bismillahirrahmanirrahim. Ismaqal iyo daawasho habboon. Halkani waa janalka halbeega wararka. Taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 17-ka bisha 9aad 2019. Saaxiibadaynu jecelnahayow qodobada aan idiin soo gudbin doono subaxnimadanna waxaa ugu xiiso badan xiisad dagaal oo ka taagan magaalada Kismaayo iyo Cabdinaasir Seraar iyo xidig oo qoranaya ciidamo ku beelahay si uga difaacaan ciidamada huwanta ee wato madaxweyne Axmed Madoobe. sidee madaxweyne Farmaajo loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb beesha Cadaado oo fariin hanjabaad ah u dirtay Villa Soomaaliya waxa ay sheegayaan inuu ballan uga baxay madaxweyne Farmaajo. xalayna waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo xiray shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo maalmihii la soo dhaafay magaalada Dhuusamareeb ka soconayay. xildhibaano ay xukuumaddu beegsatay oo dacwad ka gudbinaya General Odawa Yuusuf Raay kadib markii ay sheegeen inay maalmihii la soo dhaafay ka soo bixin guryahooda kadib ilaaladeedu ilaa ka xistay. 4 Soomaali ah oo lagu dilay Kenya dana la gubay arrin xasaasi ah ayaa arrintaasi ka dhalatay waan idinla wadaagi doonaa. mid ka mid ah 4 beel ee ugu weyn 4.5 oo diiday in doorasho qof iyo cod ahi ay Soomaaliya ka dhacdo. sababtu maxay tahay waan idinla wadaagi doonaa. qodobada ayaan idin haynaa saaxiibayaal. janalkan halbeega wararka subscribe dhaha calaamada kambaraalka furta si aad u heshaan warar iyo warbixino idin raali geliya abba janalkan aan soo gelino saaxiibayaal. muuqaalkani sii sheergaraya si saaxiibada kale muuqaalkani u gaaro. waa hagaag aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb kadib safar uu uga ambabaxay magaalada Muqdisho. wafdi hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdigiisa waxaana wafdigaasi ku helinaya madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. waxaa sidoo kale wafdiga madaxweynaha soo dhaweeyay wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan, xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin taabacsan Villa Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ee xalay waxa uu sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ku soo xiray shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo maalmihii la soo dhaafay ka soconayay magaalada Dhuusamareeb. ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa mid si weyn loo adkeeyay waxaana fagaarooyin waaweyn isugu soo baxay dad shacab ah u diyaarsan soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaana madaxweynuhu uu sheegay inuu maalmaha la soo socda ku sugnaan doono magaalada Dhuusamareeb kulamo kala duwanna halkaasi uu kula qaadan doono bulshada qeybaheeda kala duwan. iyadoo madaxweyne Farmaajo uu gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaana uu kasii dardar gelin doono howlaha doorashada. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay soo taraya cabashada ay qabaan odayaasha dhaqanka ka soo jeeda degmada Cadaado waxaana ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu uga baxay ballan uu hore uga qaaday waxaana ay ugu baaqeen madaxweynuhu in arrintaasi uu fuliyo. odayaashii waxgaradka beesha Saleebaan ee degta magaalada Cadaado oo kulan ku yeeshay magaaladaasi ayaa waxay baaq fariin u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kaasi oo gaaray magaalada Dhuusamareeb isla markaana soo xiray shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxay madaxweyne Farmaajo ka dalbadeen inuu fuliyo qodobada kale ah: 1. inuu fuliyo ballantii uu ka qaaday ee ahayd in xarunta baarlamaanka Galmudug ay noqon doonto magaalada Cadaado. 2. in doorashada madaxweynaha Galmudug lagu qaban doono Cadaado. sidoo kale odayaashan ayaa iyo waxgaradka ka soo jeeda degmada Cadaado ayaa mar kale waxa ay ku celiyeen inaysan ka qaybgeli doonin ama aysan ka qaybgelinba shirka dib u heshiisiinta Galmudug ee Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay isla markaana aysan ka qaybgelaynin doorashada Galmudug ilaa iyo inta laga fulinayo ballanqaadkii hore loogu ballan qaaday sida ay sheegeen oo madaxweynuhu ka ballan qaaday. waxgaradka odayaashan ayaa waxa ay sheegeen inay ka soo horjeedaan dowladda federaalka Soomaaliya qaabka ay u dhisayso Galmudug hase yeeshee ay dalbanayaan ballantii madaxweyne Farmaajo ballan qaaday xilligii ku sugnaa magaalada Cadaado inuu fuliyo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 22kii bishii Maarso
ee sanadkii 2018 waxa uu magaalada Cadaado u magacaabay inay noqoto xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. Odayaashan ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan madaxweynaha kuna soo dhaweyn doonaan magaalada Cadaado, waxaana ay sheegeen inay rajo weyn ka qabaan inuu madaxweynuhu kala hadlo tabashada ay qabaan wax walbana miiska wada hadalka lagu dhameeyo. Cabashada odayaasha hadda waxaan loo sheegay madaxweynuhu imaanayo, madaxweynuhu ku soo dhawow waa kuwan reexay Suleymaan halka fadhiya odayaashii iyo waxgaradkoodii fadhigooda cad ahaa. waxaan ku sheegaynaa inaan hore uga qayb galin dib u heshiisiin, haddana aan uga qayb galin doorashada aynu ka qayb galin dhismaha Galmudug aan uga qayb galin ayadoo nala ka daweyn wixii adiga madaxweynaha aadna siisay waana wali hayn cid nagu matasha oo aan keenana ma jirto. waxaan inta ku cadaynaynaa halkan waxa fadhiya Suldaankii reexay Suleymaan weeye, madaxweynaha leenna madaxweynaha hadalkaas madaxweynaha weeye, madaxweyne shacabkaadi baana wax dhibaato ah naga tirsan ma jirto. ballanna waa noo qaaday iyo qoraan siiday ful ayadii. waxaan rabnaa in madaxweynaha aan u sheegno oo uu maqlo oo jawaabta ku aadan uu ka soo saaro. waxaan rabnaa madaxweyne meeshan waxa fadhiya odayaashii dhaqanka reer Xaaji Salaamaan qaybta Cadaado oo Suldaan Cali Suldaan Axmed Nuur hogaaminayo. waxaan rabnaa xaruntii baarlamaanka ee ay raboorka Cadaadood asagoo reer Xaaji Salaamaan Suldaanku horkacaya aad ku siisay xaruntii baarlamaankan kaaga fadhinaa. Cadaadaan ka sugaynaa, soo dhaweyntaadan isu diyaar garaynaynaa. waxaan rabnaa Salaamaan waxay ka sugayaan iyo reer Cadaado xaruntii baarlamaanka sida aan shareecada ku naqaan ama maadiga ama diiniga mid rabtabaatee ninka mas'uulka oo sharadu ka goodo qaasatan madaxweynaha wixii uu ku hadlo oo aqowl ahaan ugu hadlaano waa dikareeto, wixii uu quraana waa dikareeto. madaxweyne ra'iisul wasaare ra'iisul baarlamaan in kasta dhammaan idaarada ku jirta dawladda ummadda Soomaaliyeed u sheegayna dhammaantood ka wada hadlayna. anigu waxaan dareemayaa ka Saleebaan haddaan gar daranayo oo nala qaban karaa madaxweyne annaga waxaan ku leenahay oo xaqiiqada dhabta weeyta annagu hadalkaaga waxa weeye dhaga shubnuguma gela meel cidla naga marin aariya nama marin live si live oo la yaqaanaad noola hadashay ayadaana ku qanacnay. waa anagu dawladnimaana ka soo horjeedin, midnimada ummadana ka soo horjeedin, dhismaha Galmudugana ka soo horjeedin, midna kama soo horjeedno. waxaan rabnaa waliba inaan hormood u noqonaa rabnaa, waliba waxaan rabnaa ma taqaan inaan nafteena iyo maalkeena saan shal ugu bixinaan ku bixinaa rabnaa. laakiin waxay dadku kala gar qaataan. Galmudug waxbay qaybsanaysaa qabaa'il soo 12 qabiil anagu qabiil kana waxbaan wada qaybsanayna, waxaan wada qaybsanayna waxa weey waxa aan xaq u leenahay waan naqaan, waxaan xaq u leenahay waan naqaana. هذه هذا المدحوين قصنينا walaalaha Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa intaasan qabnaa haddii aan ku gardaranahay Soomaaliya ayadana qaban doonta. waxay soo taraysaa maalmihii la soo dhaafay waxaana ay arrintan ku soo aadaysaa xilli dardar xoogan ay ku soconayso qabanqaabo loogu jiro doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ay garwadeen ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono xalka la gaaro xiisadan ka soo cusboonaanaysa odayaasha dhaqanka ee u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo beesha degta magaalada Cadaado. xiisad dagaal ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka taagan tahay magaalada Kismaayo, waxaana arrinta u dhaxaysa Cabdinaasir Seeraar iyo Xidig iyo Axmed Madoobe. waxaana la sheegayaa in Xidig iyo Seeraar ay qoranayaan ciidamo maleeshiya beelada kuwaas oo u wacdiga awoodda cuud ee Axmed Madoobe u haysto. xiisada colaadeeda ayaa waxa ay ka taagan tahay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose, taasoo u dhaxaysa saddexda madaxweyne ee ku sugan magaalada Kismaayo kuwaasoo sheeganaya inay yihiin hoggaanka saxda ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. wararkaynu ku helayno magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan in siyaasiyiinta Cabdinaasir Seeraar iyo Xidig oo sheegtay madaxweynayaasha Jubbaland ay magaaladaasi ka wadaan how aruursi
iyo qorista ciidamo maleeshiya beelaad oo daacad u ah. Abaabulka siyaasiyiintan ayaa waxaa ka dambeysay kadib markii uu dhowaan warbaahinta ka sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe in aysan u dul qaadan doonin in Kismaayo ay kusii sugnaadaan rag sheeganaya madaxweynayaal Jubbaland. waa sida uu sheegay kadib khudbad uu ka jeedinayay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in Xidig iyo Seraar ay kulamo ku yeesheen magaalada Kismaayo inay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin in si kastaba ay isaga difaacaan xuduudda ciidan oo haysto madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe, iskuna bahaystaan qaabkii magaalada Kismaayo ay kula wareegi lahaayeen. waxaa sidoo kale heshiiskan qayb ka ahaa qodobo kale oo sheegay in haddii midkood ciidamada Jubbaland ee Axmed Madoobe uu kusoo weeraraan in mid kale uu ka difaaco ciidamada ay haystaana ay isku biiriyaan. xiisadan cusub ayaa waxaa la sheegayaa in ay soo cusboonaanaysa maalmihii lasoo dhaafay kadib markii la isku afgaran layahay cidda si rasmiga u maamulaysa magaalada Kismaayo. dadka shacabka ay ku nool magaaladaasi ayaa waxa ay muujinayaan cabsi xoogan taasi oo ah in dagaal uu ka dhici karo magaalada Kismaayo kaasi oo u dhexeeya Cabdinaasir Seraar Xidig iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. magaalada Kismaayo ayaa waxaa yeelatay 3 madaxweyne waxaana la ogeyn halka ay saldhiga doonto xiisadani u dhaxaysa siyaasiyiintan isku haya maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. xildhibaano ay xukuumaddu beegsanayso ayaa waxay dacwad ka gudbiyeen General Odawa Yusuf Ragi. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya waxay sheegeen inay dacwad ka gudbin doonaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Ragi. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay amar ka soo baxay taliyaha ciidamada xoogga dalka loo kaxaystay ilaaladooda xildhibaanadu waxaana uu sheegay inay xildhibaanadu u nugul yihiin wax walba. waxaa sidoo kale uu tibaaxay in haatan ay cadowgu u nugul yihiin maadaama ciidamadoodii laga kaxaystay aysan kasoo bixi karin guryahooda. go-aanka General Odawa Yusuf Ragi oo xildhibaanadani kaga kaxaystay ilaaladooda ayaa waxaa lagu soo waramaya inuu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. waa siday qortay warbaahintan aan kasoo xigeenayno ee caasimada online. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa waxay warbaahinta caasimada u sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu amray in ciidamada difaaca dalka ay ku jiraan shaqada leexsan la geeyo goobaha laga saaray xarakada Al-Shabaab oo haatan ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan guutada 6aad ee madaxtooyada Soomaaliya. hase yeeshee xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa waxa uu rumaysan yahay in tilaabadani ay tahay mid si gaar ah loogu beegsanayo xildhibaanada aan aragti ahaan raacsanayn madaxa jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya kana aragti duwan. waxa uuna ku baaqay arintani inay wax weyn la qabto wixii cawaaqibka ka dhasha ayaa waxa uu sheegay inay qaadi doonaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalk Soomaaliya. guud ahaan markaa ka daawanayseen warbaahinta halbeega saaxiibayaal intaasi ayaan ku soo koobayaa isma dhaafno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.